haddii aad daawato muuqaalkan fadlan subscribe saar mahadsan. taageerayaasha xisbiga mucaaridka ee wadani ee qurba jooga ayaa waxa ay maanta gaadhi cusub ay guddoonsiiyeen mujaahid cabdi ibraahim oo ku caanbaxay ereyga ila meerayso waxaana gaadhigaasi mujaahid ila meerayso guddoonsiye guddoomiyaha xisbiga wadani ee gobolka Murudijeex mudane xamse ciise oo ay soo wakiisheen qurba jooga gaadhigan cusub ugu deeqay mujaahidka. anigoo ah guddoomiyaha gobolka Murudijeex xisbiga wadani waxa maanta noo farxad ah inaanu halkan aan ku wareejino gaadhigan mujaahid cabdi ibraahim cabdille mujaahid ila meerayso oo runtii qurba jooga xisbiga taageera ee dibadda ay u soo direen isla markaana anigoo ah guddoomiyihii gobolka ay iga soo wakiisheen ayaan doonayaa inaan ku wareejiyo mujaahid ila meerayso. runtii waxaan leenahay waa noo farxad weeyaan mujaahidka ay soo maamuseen waxaan leeyahay aad iyo aad ba u mahadsantihiin haddaad tihiin qurba jooga xisbiga wadani ee taageerayaasha ah mar labaad iyo mar saddexaad ba waan idiin mahad celinaynaa. mujaahidkuna runtii waa mujaahid waddanka u soo halgamay waddanka xaq badan ku lahaa runtii waxaan leeyahay mujaahid gaarigan iyo wax kaloo ka badan ba xaq baad u lahayd mar labaad iyo mar saddexaad ba waxaan leeyahay aad iyo aad bay u mahadsan yihiin qurba jooga xisbiga. insha allah bidillah kariim waxaan doonayaa inaan goobtan markaa ku wareejiyo gaariga ay soo iibiyeen oo aniga ay soo wakiisheen inaan ku wareejiyo mujaahid cabdi ibraahim cabdille mujaahid ila meerayso. runtii halkan uu goobjoog ka yahay yuusuf nuux oo isna ah qurba jooga xisbiga qurbaha runtii isna oo aad iyo aad ugu mahadnaqayo oo ah raggii runtii hawshan isagu laftiisu gacan libaax leh ka soo qayb qaatay aad iyo aad baad mahadsantihiin. sidoo kale waxaa isna madashaasi gaadhiga lagu guddoonsiinayay mujaahidka ka hadlay yuusuf nuux yuusuf tadhase oo ka mid ah taageerayaasha xisbiga wadani ee qurba jooga ah waxaana uu sheegay in mujaahidku uu mudan yahay in gaadhigan iyo wax ka weynba la guddoonsiiyo. marka hore waxaan halkan mahadnaq aad u ballaaran uga soo jeedinayaa guddoomiyaha xisbiga wadani ee gobolka Murudijeex xamse ciise cabdi shire. runtii aan odhan karo muddadii uu xilka hayay waxyaalo fara badan ayuu gobolka ka bedelay. waxaa noo farxada waxaa agteeda taagan midigtayda adeerkay mujaahid cabdi ila meerayso oo caan ah runtii taariikhda sanadkii tegey ka mid ah ragga lagu xasuusanayo. mujaahid waxaan salaan kaaga sidaa qurba joogtii taageerayaashii xisbiga wadani boonka iga soo garaacaya. gaadhiga aad maanta arkayso waa dhalinyar taageerta xisbiga wadani ayaa kuugu tala gashay oon anigu aqoon isku leenahay oo xamsiya aqoon ay isku leeyihiin. mujaahid dhalinyartaasi muddadoo ku gaabnayd ayay gaadhigan maanta kuu soo direen waxaanay ballan qaadeen haddii ilaahay idhaa kan iyo mid ka weynba inaad xaq u leedahay. xisbiga wadani waxa aanu ku jirnaa abaabul iyo sidii aanu dhiig cusub ugu shubi lahayn xisbiga wadani haddaan nahay dhalinyarta qurbaha joogta iyo kuwa gudaha joogaba. waxaan halkan runtii aad iyo aad uga mahad celinayaa dhalinyartii faraha badneed ee la soo xidhiidhay sadaam xasan dhugad oo Finland jooga hilaal oo kale oo isaguna jooga Jarmalka iyo cabdiftaax qalinle iyo cabdiftaax internet rag fara badan. mujaahid salaana waan kaaga sidaa gaarigaana way kugu soo wareejiyeen. sidoo kale waxaan u mahadnaqanaa wada shaqaynta fiican ee naga dhaxaysa guddoomiyaha aanu had iyo jeer aanu aad ka jecelnahay xamse ciise cabdi adna aad baad mahadsantahay xamse. ugu dambeyn mujaahid cabdi ibraahim ila meerayso oo gaadhigaasi guddoomay ayaa waxaa u mahadnaqay qurba jooga xisbiga mucaaridka ee wadani ee maanta gaadhigan cusub ugu deeqay. waxaan celinayaa qurba joogta Somaliland gaar ahaan xisbiga wadani taageera iyo qulqul joogtaba gaadhiga ii soo diray ii soo wakiishay guddoomiyaha gobolka xamse ciise cabdi shire waan ka guddoomay iyagana waan u mahadnaqayaa. cabdiraxiim muuli ismaaciil shabakada wararka News magaalada Hargeysa.